ها marka macni meeshaasi maxaabiista wareejinteeda kaar siyaasadeed ma ku jira mise kuma jiro yaase ku gaadan way caddahay nimankan magac bay ku raadsanayaan magaciyo muxuu ahaa in baa waddankan dawlad ka nahay baa laga raadsanayaan maxay hayto waxaanuna waxa weeyaan maxay hayto marka yani kubadda waxaa loo dhigay Soomaan dawladda macnaheedu federaalka Hargeysa iyo Muqdisho wada hadlaaya oo maxaabiis kala gudbisanaya oo kale saasay u dhigan tahay Soomaan عادي كوان إنه سوحنا هاي بالتصيا سؤال شوقة إنه سوحنا هاي صوت يجو محوها حق وحيد هاي يجو إنه ورتيان وكورتيان محوها بيشي أي محوها ما بقول كل جاك اللي ورتيه حق ولا هاي من ذكره دولة هدي للشجرة كوان لفتي كذا وحبلا شو كل واحد يغير ما هو حبوا بيسكت تلقى ما دام كانوا الواحد يغير كوان الواحد كسي اللي تانو كاس الواحد يغير أو حبك كلاقون بكعقل بديهي marka nimanka hadii dawlad ay yihiin kuwan xabar jooga hadii dawlad yihiin korjoogteen bay ku lahaayeen iyagu inay qoladan Soomaaliland la hadlaan ka shaqeeyaan sidii muxuu ahaa maxaabiista Soomaaliyeed oo labada dhinac wada Soomaaliyeed sidii la isku soo doonayay inay korjoogteeyaan laakiin ayagii baa faraha la galay oo digsigii karkarinaya waxaana halka ka cadinaysa waxaan oo dhan wax siyaasad wax ka oga yihiin dad reer miyiga meesha isku tagay oo muxuu ahaa aan siyaasad ahaan iyo protocol ahaan aan dada waxba kala ogeyn marka maadaama waxa dhan waxa weeye sida sheekadii reer miyiga meesha ka socotay oo maxay ahayd toy dadkii geela kala dhici jiray oo muxuu ahaa geela laga wada hal jiray si loo celin lahaa iyo waxyaabaha noocaas oo kale sheekadii saas oo kale dhaqanka laakiin waxa jira wax international law oo sharci caalami ah jira beesha caalamka meeshaan hadda waxaa la rabay haddii meeshaan dan la heshiisiinayo hataa beesha caalamku inay goobjoog ka haato oo waxaan lagu heshiinayo laakiin beesha caalamku soo jeesto dawladdu waa shaqaynaysaa inay yiraahdo laakiin waxay ahayd laakiin dad beesha caalamku dad wax bartay weeyaan dad dawladnimada garanaya weey dad sharciyada garanaya weey marka waxaan oo kale beesha caalamku hadda mama maqal inay waxa kama yahay hadday waxaan beesha caalamku ka mid baynu nahay waxa beesha caalamka Soomaaliya aad bay faraha uga jirtaa oo ugu fara dhudhuwantay marka waxay wax la weyday waxay arkayaan sheekada meesha lagu hayo inay sheekada iska reer miyita way Cabdisalaam su'aal kale hadaan ku weydiiyo maxaabiistan qabashadooda dagaalkii waxa qayb ka ah Puntland ama si kale hadaan u dhigo ma jeerteen inkastoo Puntland officially dawlad ahaan ay inkirtay laakiin qabiil ba soo galay qabiil baana loo dagaalamay ma lagala tashaday ma jeerteen iyo Puntland toona in ma arkayse macnaheedu maxaabiistan dhulbahanta in ay u dhiibayaan Xasan Sheekh Maxamuud iyo Xamse Cabdi Barre tashi ma la geliyay oo raali ma ka noqdeen ma jeerteenka ogaalkaaga ma lagama tashan waxna lagama weydiin maxay ahayd toy raali iyo raali laamba lagama tashan waxna lagama weydiin maxaa waxaan ku warhelay iyadoo muxuu ahaa kan lagu dheer iyo waftigiisa iyo wixii wasiirada sheeganayay ay meesha ka dageen baan ku warhelay kan lagu dheer ma waxa ula jeedaa ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ra'iisul wasaare anigu ma aqaano anigu horta Cabdisalaam Xasan Sheekhna ma aqoonsani Xamsena ma aqoonsani waxaan wasiirada sheeganayna ma aqoonsani baarlamaanna ma aqoonsani shakhsiyan aniga Cabdisalaam ma aqoonsani sababta anigu dawladda waxaan aaminsanahay Cabdullaahi سعيد عبد الله الدني مدحوينها بوتلاند بان امسنها انه بوتلاند اني مامور شرطها كما حبنا الصوماليه كما حبنا الحسن كما حبنا حمزه كما حبنا قراها وسيرته كو شغليا مامور كودي لبا سنه 2 years ago baalajay anagu isbedel baan sugaynaa maalintaasaan Soomaali wax la qabsanaynaa la shaqaynaa laakiin waxaan intay meesha joogaan annaga wax naga dhaxeeyo xiriiriyo wax connection naga dhaxeeya ma jiraan sida ay noo dhinac mareen baan anagu loo dhacmaray wax naga dhaxeeyana mar noomana imaan karaan hadday noo yimaadaanna waxa weeyaan kuwa dhacaanba maxay tahay maanta iyaga iyo annaga awood roono beesha caalamka oo u barbardhigno buraha galgala waxa 30 dawladood baa ka dagaalamaya maxay haytay waxaan arkaysid baan barbarka u dhignay ayaguna afar wiil oo shabaab is ay sanayaan oo ka adkaa waayeen maalin walba tulooyinkii laga qabsanayo
واي لكن مركل هدان كوكو علي إسلا سؤاشاسي ما تشيرتين ما لغلا تشادي سيدينتا ما أركيسا محابيستان والبهانتا ما كلا تشادي ما واحد لك ويدي معنا وإلا يا لا واحد لك ويدي يوحن كوين منا مره waxay xaq u lahayn waxaanu xaq u lahayn in muxuu maadaama raggan aan shalay soo wada qabanay rag naga wada maqan yahay tol aan hayn in xataa ogeysiis nala siiyo la yaa warantaas aanu galaynaa marka annaga danbay noo tahay birito ayaga dagaal waan haysaa laakiin annaga buuraha galgala ku sii jeedno dagaalanayno oo beesha caalamkood wixii argagixisa joogtoona isku tagtay meesha oo xataa caalamka u diyaarada malihina meesha caalamka u gacan haadsanay oo ciriya dhulba kuwii laga garaayo oo dagaalka ku sii jeedno intii nala tashan lahaayo oo haddii la yiraahdo xataa inkastoo aan waqti madaxweynaha Puntland iyo kabineetkiisu aysan waqti lahayn oo dagaal ku jiraan in maxay ahayd xataa ogeysiis nala siiyo la yiraahdo muxuu shirba ka dhacay laascaanood iyo garowe laascaanood degmo ka tirsan garowe bay ahaan jirtay inta gobolada qaar hal sano meelaha sidoo gobol ah ayay muxuu ayay waxay qaadatay gobolnimada markii dawladda si burburisay gobolka Baki iyo gobolka Sool baa ugu dambeeyay hal sano kaliya magaalo madaxeed markii dawladda Maxamed Siyaad burburisay marka maxay ahayd degmo ka tirsan bay ahaan jirtay garowana 100 kilomitir bay u jirtaa degmada laascaanood marka meesha sidaa nooga dhow haddii shir lagu qabanayo oo heshiis noocaas ka dhacayo waxaa la rabaa xataa ogeysiis in la siiyaa laga baraytaasaa dhacayse ogaada annagu inaan goob joognahay necessary maahan in heshiiska qayb ka nahay necessary maahan laakiin tixgelin iyo walaalnimo iyo wixii shalay naga wada xigay ogeysi muxuu tixgelin baanu lahayn laakiin haddaan waxba nala ka tixgelin annaga way noo fiicannahay birito dala oran maayo muxuu maxay ahayd wax gacana oo damo aan isku yeelanayna male ninkii isagu tabar yar bay u taallaa annagu waa ka tabar weynahay awood nagu filanna waanu haysanaa ciidan nagu filanna waa haysanaa dhul naga badanna waanu haysanaa muxuu ayaga awalba aan kolkolinayno doonayno inaan wax u tarno laakiin hadday naga kaaftoon adana waa ka kaaftoon way laakiin Cabdisalaam marka sidaas aad leedahay dhulbahanta iyaguna qaarkood waxay ku doodayaan oo ay leeyihiin asxaan idinkagama hayno maxaa yeelay annagaba hadda wiilasheena waxay ku dagaalamayaan waxay kaga jiraan safka hore buuraha galgala ee Puntland maalintii la aasaasay ilaa hadda ciidanka ugu badan ee Puntland u dagaalamay waa inaga marka sidaas awgeed ma arkayse nuguma mana sheegan karaan ma jeerteen in ay inoo soo gurmadeen taasi waan isku leenahay bal annaga kaga horeynay sidaas ay leeyihiin horta annaga abaalba kama rabno midda kale annaga waxay noo dagaalamayaan male nimaan annagu mushaar siino oo muxuu cashuurtayadaan siinana annaga ciidan ay noo soo direen maaha waa ciidan annagu mushaar siino marka annaga nin mushaarkeena qaato cashuurta xoolaheena ka qaadnaan siino oo annaga ciidan noogu annagu abaal nooguma sheegan karaan nimanka uu leeyahay waa dagaalamayaan xabad ciidanka Puntland in laga helo waa macquul waana niman mushaar ka qaata Puntland marka macnaheedu waxaad inkiraysaa in dawladda Cabdullaahi Yuusuf Axmed dhulbahanta ciidamada ugu badan ay ahaayeen ma hadday ku jireen taas dawlad Soomaaliyeed baa waxa anaga noogu mar sheegan karaan ma hadday taa ku jireen xataa dawlad Soomaaliyeed baa waxaan ku xignay maahay waxay noogu bisheegan karaan maahay qabiil anagu ma dagaaladayna qarannimo Soomaaliyeed baan u dagaalamay marka iyada daasteen marka tan haddana waxa weeyaan nin anaga ciidanka ninka anaga laascaanood mushaarka hadduu ka qaadan lahaa uu jiro mushaar ka qaata inkastoo iskaba qaadanba nin anaga noo maqan maahay waa nin iyaga ka tirsan marka ninka hadda calmiska ka dagaalamaya waa nin Puntland ka tirsan mushaar ka qaata marka nooguma abaal sheegan karaan ciidan fardiya noo soo direen ma jiro ciidan maamul ahaan ay noogu soo direen ma jiro ciidan qabiil ahaan ay noogu soo direen ma jiro waa ciidan mushaar ka qaata Puntland way haddaan u gudubno maanta aadan yabaal mashaqa ka dhacday ciidamadii gorgor danab iyo waliba asluubta oo digli mirfla u badan waxa weeye dhig talii ciidamada xoogga soo cararay ilaa hadda jaani xiri meesha u dhig lama hayo gurmad baa la raadin ciidan waa la waayay diyaaradaha hadda la raadinayaa si bal shacabka loo yiraahdo meesha annaga joogna wax la dilay iyo wax la kaxaystay iyo wax dhaawaca laga dhigay ciidankii aadan yabaal saakay joogay marka sideed u aragtaa midaasi iyo madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo laba habeen dhuumasho ku jooga magaalada Muqdisho bila Soomaaliya maxaa ku kalifi karana madaxweynaha inuu dhuumasho ku tago Muqdisho
حسن الشيخ تاسنا يكون على الوامريني صوتها وحالي لو ولا الحقود بالي لو ولا الحقود هدا قدنا خديرين كل عدوتنا فباو حسن الشيخ امد كانوا دباتنا كشقينيا والصوماليين marka way ku dhacaysaa sababta waxa weeyaan qof adiga maxaa aad kitaab u martay oo dhibaatadiisa iyo xumaantiisa ka shaqeynaysa tan iyo mid ka daran iyo tan iyo mid la mid ah iyo mid ka daran way ku dhacaysaa marka xasashin taasuna ku dhacaysa way noognahay sababta waxa ku dhacaya kitaabkii baa qabanayaba ummadda Soomaaliyeed oo maray dhibaatadooda uu ka shaqeynayo isku durkooda iyo suu dhibaatay la uu ka shaqeynayay marka dadka ku dhimanayo ciidamada sheeganaya waxa leeyahay war arin la aanayaatiin xasan haw dagaalamanina xasan waxa weeyaan maxay hayto ilaahay xaq qarannimo Soomaaliyeed meeshan ma taalo waa lagu kala tagayo meeshan dawladnimo ma taalo waxa dabeer dhintay kama duwaneedin waxa leeyahay hadda ku tala gasheen ilaahay idin naxariista leeyahay ninkii ku dhinta ninkii kalena oo muxuu ahaa Soomaalinimo annaga dagamo ku hadaan Soomaalinahay waxaan leenahay naftiina badbaadso iskaga baxa xasan dawlad loo dagaalamo maahan xamsan ninka u dhimanayo ra'iisul wasaaraha waxa uu ka yahay u dhimanayo ama u dhimanayo xasan oo kulligood kitaab maro 14 boqolka qaba wixii ay ka dhaarteenna fid munaafaqad iyo fidma ka shaqeynaya qofka u dhinta ilaahay baa u naxariisan maayo ana taa cadaynay way aboorey waa laga soo baxay dawladda way ka soo carartay maantay sidoo kale ma arkayse Moqokori waa ka soo baxday degmooyinka haray waa aadan yabaal iyo cadalle iyagana waxa weeye aadan yabaal waa kan maantay hadda ay ka dhacday hawiye shir bay ku qaateen magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya shalay toole qarannimona way wadaan qabiilna way wadaan waxay yiraahdeen hawiye cayayaanka ku dhex jiro dhar waa inaan iska saarnaa lafta gareen iyo haweyn bay damceen inay dhahaan shabaab iyaga hogaaminaya dhulka haweyn way ka soo saareen oo dhulka hawiye u soo direen tii way la yara xumaatay waxay ka baqeen in haweyn ay ku soo jeestaan haweynta maanta lama dhayalsan karo haddana shirkii waxay afka saareen dir waxay yiraahdeen dir waa cadowga koobaad ee hawiye argagixisadana dir baa keentay shirka waxa laga sheegay shakhsiyaad hawiyaha magacyadooda waxay yiraahdeen sida mahad karatay way dhaliileen laakiin hawiye oo dhan kuma cambaaraynin sidoo kale waxay sheegeen Ahmed Godane laakiin Godane iyo qabiilkiisa dir oo dhan waa argixisay dhaheen sidaas ma cadaalad baa dirta shalay iyaga dhahay in Soomaaliland isla nahay si ay kursi ugu fuulaan laakiin maanta dir waa cadow koobad dhamaantood waa argagixiso sax baa sidaas in la yiraahdo iyada oo hawiyaha shakhsiyaadka argagixisada ahna macnaheedu qabiilka oo dhan aan la isku qaban oo aan la dhin hawiye oo dhan ba argagixisa ay iska bari yeelaan oo dhahaan hawiye argagixisa shaqo kuma leh ma arkaysa macnaheedu shakhsi ayaa nooga jira bas laakiin waxaan Ahmed Godane iyo dir oo cadowga koobaad ee hawiye ayaa wata sidaas ma sax baa ma cadaalad baa hawiye hadalkaasi in ay yiraahdaan dir nin iyo naag oo dhan waa argagixisa inay dhahaan sax baa horta yaa nadilaya ilaahay Soomaa yaa sanaaburtay soo ilaahay ma yaa ka baqayna ilaahay Soomaa ilaahay argagixiso haday jirto hawiye iyaga abuuray muxuu ahaa Somaliland iyaga abuuray haday jirto waa cadaynaya waxaan ku cadaynaya waa sababaynaya nimankii ugu horeeyay oo dagaalama oo al-shabaab al-jihad looran jiray burca saldhig u hayd waana ku Puntland la dagaalamay oo looran jiray 92 oo Xasan Daara Weysiye hogaaminayeen oo ka dagaalamayay Garowe iyo Boosaaso ka dagaalamayay dadka la isku tago la dagaalamayeen Somaliland ma ahay reer Puntland bay ahayd maxay haytay markii dambana Mainland iyo muxuu ahaa ciidamadii Soomaaliya oo reer Puntland u badnaa muxuu ahaa baydhabo joogay ma waxa loo soo gashay saati beera oo maxkamadda la leeyahay waxba ka jira sababtoo dawlad Soomaaliyeed bay ahayd anuu dadka ka xigsan maayo dawladda Cabdullaahi hogaaminay maadaama ay dawlad Soomaaliyeed ahayd laakiin martibay ahayd waxa reer Mainland lama sharfin oo martidoodii lama sharfin ila dawladdu tawar barahayn oo dawlad caga dhigatay ma ahayn dawlad waxay ahayd garab farataa bay ahayd marka oo wali xoogaysan doonaysa dalkeed inay ku soo noqoto wax u qabato ammaanka iyo dawladnimada ka shaqeyso marka maxay ahayd jawaabtii ay soo weerareen dadkii soo weerareen in cadda ka mid aha Xasan Daara Weys baa ka mid aha Shariifka ka mid aha dadkii hogaaminaya in Cabdi Shukuur ka mid aha waxa hadda siyaasadda hormooda iyo dhan baa ka mid aha iyagoo maxkamada sheeganaya
ayay soo weerareen muxuu ahaa mayla soo weerareen magaalada muxuu ahaa weerarta buur xakamay xabadda ka soo bilaabeen waxay ahayd weli cabdullaahi soo ka cararaya oo jawhar ka soo cararo jawhar laga soo caysay baydhabo wixii ayaga ahaa ayagiiba haddana kala xabadeen dowladdu ciday kaashan kartay kaashato Itoobiya iyo dadka deegaanka iyo muxuu ahaa iyo wixii ciidan watay oo Puntland ka yimid wixii baa